bukaan kan magaciisa maan habboon waxaa lahaa Nadiir Cabdi midda kale ehelkeeda la jooga ما سنتهي adiga ma harjina ehel doonta Nadiir Cabdi waayo meeshaas la sarkeeyo soo laga yaabo in wax kale ay ka soo baxaan oo gabadhan ay aragtay ay tiraahdo iyada u egtahay marka xataa mar labaadka xataa ay ku adkaysanaysaa iyada ila ekeed ay tiraahdo in habboon tahay dhakhtarka ku jirta habboon idan soo macquul ma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جايز كسر دوادا مركلة مقال عصب حلقات نقل سعطان وراش فيلميس قفك إذا لا لاينا ولكن الراش عيان وحيد الله هاي كان كتاكم سبسكرايب كنوصر بليز لايك مقال كنوصر محايلة ميرفي عن أي نوغارسين إنسا dhalinyaro badan ayaa waxay iga codsatay inta badan inaan reaction ka soo bixiyo musalsalka Habboon marka musalsalka Habboon toddobaadkii waxaan jeclahay in laba jeer soo galo marka waxaan siraahday bal isku geeyso laba xalqadood bal wixii fikradaada markaas ka sheeg laakiin xalqad walba dama ka bixinaa dho asla waalnina okay sida marka aan waxaan rabaa maanta inaan xalqadihii ugu dambeeyay labada xalqadii ugu dambeysay waxyaabo aan ku arkay aad u cajiib ah maxaa yeelay musalsalka hadda wuxuu marayaa meeshii ugu macaaneed waxaan ku iraahday dhiinta maraya ما قرأت وكل هذا معناه حد الله وصف عنه كل هذا مركا بل وصاير كوينا إن مقالك لايك نصار بليز ميل درسوا جار مقالك سبسكرايب كنصار صدنا مرينا صدم كن ما حد بل أنتوا صومين إنهم بقولك بوحنا نقدر هاي دول معن يا هل هبين دتك قارو أبو حسين مسي يوتيوب برضه قاركود مركا إنسان أمران أتاجرتين ووينك حليني لو صوت أردامي هذا دالكينا فيديو يوتيوب قناه كينا سوايغا بالله عليكم اوكي انتاسنا waa canaan ee kaftan aan muuqaalkeena reaction ka bixinayna bal asaaragna bal xalqadii tan ka horeysay waxyaabo aan ku arkay hadalka been hor ku dhaa rumaysan ma wali waxaa rumayst waxyaabo kala badan inay soo bixi karaan qofka hadda asoo intaas soo guri ku nool Allah sheego la yiraahday naas soo wada nugteen waa waxyaabo badan oo ay fikirtay gabadhan waxay tiraahday naaska wax ka weyn jire reerkan wax kale qarinooyin sidee hooyo aab sababta intaan sano u qarinayn maxay tahay hadii tan qarinayn ma qabo wax kale ka qarin karaan qoftaan aqliilada ma taageeraan nolosheedu dhan hadda shaki igina waxyaabo waaweyn ay qarsiin aaminsanaa هذا أرنت ويل waxyaabo waaweyn inay ka qarsiin aaminaysa waa sax ileen inta yar oo naas la soo nuujiyo wax yar inta hadii la qarinayo maxaa kale oo la qarin karaa jaamacadda qoftan abo ma la gaadi karo islaanta waa kana waxa laga soo doontay intaan waan yara jaray iyadana waxa la soo doontay gabadha marka naagtan oo maata kale wada ogtiin ilmo yar wiil xanuunsanay wada oo ku jilay filimka xanuunsan yahay deeq loo soo marka waxa loo soo bandhigay maamadan in gabadhiya wiilka oo la sheegay inuu xanuunsan yahay iyadana waxay istiraahdoon yaa naagtii Habbooneed meel isku dhaafisa la eede جانس أقصى مر عمل. كذا أنا إيه لا تمد هو هرت إلهي غيرك كوافجي قبرنا وابت هالشيء وأنا قوها يا قبر يدا وإلا كفتميس أقول لك كفتميس والله يا قبر ميل سكوتها في العاكوده جانس أقصى دهنا تبع هاي هيه وحاجرت قبر ير أو واجس أنا وجدك كهلا gabadhi waan soo qootay waa baafi waa naadi dadkeedii la raadiye cid ii soo sheegto waa sheekada Habboon inta badan waa la qarinayay laakiin si fudud ayaa gabadhan loogu sheegay xaqiiqatan sheekada Habboon in wada laga soo helay filimka xalqada dambe waa lagu sheegayaa laakiin wada ka soo helista waxba ku lifaaqan oo qarsan aniga aaminsanahay wali وتاجنت Habboon waalidiinteeda inay filimka ku jiraan wali waa aaminsanahay aniga masabra ilaa filimka dhamaadkiis doorka aan uu ku leeyahay adeer ducaale filimka intiisa hore nin iska masaakiin oo degan oo ahaa asigoo arkaya guriga laga raacdaystay ninka la leeyahay xirsi haddana Habboon loo soo dhacay marka ducaale xiliga wixii ka dambeeya wuxuu ku qasban yahay inuu safta waxa la yiraahdaa seefta galka kala baxade maamada in la iska celiyo markaan waa soo dhigatay fiiri abo qof weyn oo jaamiciya tahay qof ku qasbaysa malaha dooqaada iska leh waxaas adaa u madax banaan cid ku qasbi karta malaha ninaan rabin ma lagu qasbay sideeda
yaab yes qayb kalsoonida kamid macnaha filimka waxaa nala tusinayaa dadka guriga wada degan oo dhan inay gabadhan cadow ka wada ahayn ee dad jecel ay jiraan sida adeer ducaale maxaa yidhahdaa ninka la leeyahay jamaal wiilka yar xasan all oo dadka ay wada jecel yihiin keliya xaafadda labada dumar ee gabadha la dhaho maxaa yidhahdaa maamada iyo gabadha la dhaho magaceedu waa ii gooyaabe ismahaan labadooda inay mucaarid ku yihiin meesha ka cad kana waa la keenay intaana ugu qosol badan haweenka filimka intuu socday haweenkan saa u qosl weligii uma qoslin wallahi billah xariifka labada aboon lagu daraayo waxaa u malaysaa cristiano ronaldo garoon soo gala camal orda lagu soo gala aragay duqda waa yaabtay albaabka aakhiraysiyaa ku hormari jini maa ku dhaafay cod kale maa ku dhaaftay kaal deeq salaam habrinta oo lasoo xariir deeq waa kanaa waxaa u malaysaa inuu ku fadhiyo maxaa lehay banooni inuu ku dul fadhiyo umalaysaa wal budbooda waawe ciyaalnimadaa soo xasuustay maskaxiyan macnaha wuxuu deeq ku jilayaa inuu yahay qof caqligiisa iyo jirkiisa ay kala wen yihiin maamada yaaba u shidan yaab yaa kan haboon say ugu dhaadhicina inuu gursado camala iyadoo marka horeba haboon tacbaan la eeda alaab kale loogu daray intaan waan ka helay iyadana waxaan usoo qaatay gabadha idin la leeyahay waa dhiig miiran wayaan ismahaan oo filimka ku jilaysa inay tahay cadow ama haboon cadow ku ah yaa soo wacayso kadib marka ismahaan dareento in gurigii hooshii keligeeda kusoo baxsatay idil la soo wacay idil taariikhda dhigayso caadi u tahay garxada weydiina sababa haboon raadinaysa maxay tahayna walaale hoosh guriga dhan waa igu badatay maanta dhan ani keligeeya iska daba wareegayay waa daalay walaahi rafaadka adduunka iga muuqdo fiiri intii kula joogtay maxaa uga faa'iidaysan weysa walaasha u ilaasho weysay oo saaxiib uga dhigan weysay saa camalkaahe saneestaa tahay noo sax shaqada guriga bas aa raadinaya miyaa sabab kale uma raadinayno waa mahadsantaha ku dhan ka wadee fiiri waa mahadsantaha abaya ku dhan ila hadal horta adi aya qofta waa wataa filimka number 1 taageero waa qofta waxa uu ku ilaahada caadi ma ah caadi ma qaybtan kale tan waxaan usoo qaatay maadaama ay tahay qaybta muhiim ah oo runta loogu sheegay markaan jamaal inuu ogaado jamaal wuxuu aaminsanaa haboon inuu adeerkiisa dhalay laakiin xaqiiqda loo sheegayaa maamada laakiin waxay isleedahay markaa xaqiiqda sheegto waxbaa isdhimaaya laakiin waddo kale isku sii furtay haboon walaalkay ma dhalin anaga gabadhaydana ma aha waa gabaraan soo helnay jidkaan ka helnay anigii aabbaha ayaana korsanay labadeenoo keliyahaan ogeyn sirtaas macnaha sirti gacanta laga saaray sirtaas way jirtaa oo haboon in wadada laga soo helay waa la cadeeyey sirti dhagaha laiskugu sheegaya hadda banaankay taalaa laakiin haboon waalidkeeda I'm sure 90% aan dhihi karaa 10 kaleeto waa laga guuleysan karaa inay soo baxayaan weli waxaan rajeynayaa inay filimka weli ku jiraan haddaba anaa kuu sheegayo hooyo sababta iigu sheegtay xilligan waa inaan joojiyo raadinta haboon sax maamada waxay kugu sheegtay inaad haboon raadinteeda joojisatay laakiin waxaa ogaataa inay sabab u noqonayso inaan si fiican usii raadiyo waaw hadda wuxuu aaminay gabadha inay dad la-aan tahay awal adeer iyo wuxuu isdhaayay waa inuu raadiyaa kabiir horta waa ka foqay markaan dhahay ninkaan ma jecla haboon inuu jecel yahay wuu cadaystay hooyiis u sheegu yidhahday gabadhaasa gursanaya xalqadii saddexaad kasii horeysay labadii xalqada kale kasii horeysay okay jamaal macnaha shaki iga jira inuu haboon jecel yahay waana mahadsanta warbixintaada okay ismaana meeshaan marka ku rafaadsan intaa weristana qosol xalay dilo maxaa kugu dhaca hooyo hawshan waa kugu badan waxaas alaaba u taalo hooyo maxaa qabtaa qolalka ma Dharka ma dhaqaya. alaabta ma dhaqa khadamaad kariyaa intee ka bilaaba maxaa qabtaa wallaahi ma aqaan hawshan adigay kuu taalaa naagta hawshan kula qaban jirta way tagtay waad ogtahay misoo noqonaysa miya waa jeclaan lahay waa jeclaan lahayd inay soo noqoto ku adeegatid oo kiina u guurisid deeqna u guurisid ninka xanuunsanaa inay soo noqoto laakiin ma aqaan inay soo noqonaysa in kale uma malaynayo maxaa kugu dhacay
waxaystay leerka ugu dimi jirta waxaystay iyo santaaga waxaystay iyo cuntada hore u boobsiidaade intaan iyadana waa qayb kale oo filimka muhiim ah haboon in la raadiyo macnaha haboon in guriga iska fadhinin oo la raadiyo oo guriyihii ehelka laga raadiyo asxaabta laga raadiyo wadooyinka laga raadiyo aad u taageeray aad u raadinaya Erdogan iyo Jamaal Baxboon raadinayaan wow xalay waxaa kaloo iyadana filimka aad u sii macaaneeyay waxaa soo muuqda muddo kadib ninkii la dhahayo Xirsi oo xaafadda ka maqnaa asigoo ganacsanayo oo face mask iibinayo intaa markay dhacday xalay sheeko u qasab badneed xalay primary ku daawanayay dadka badan waxay soo qorayaan haboon hala raadiyo yarta raadiya odayga markay wareeganayaan markay intaan soo dhacdo xariifa soo qoray screenshot ka qaaday ma Xaliimo Saciid Akbar waa qaalaayes saadiya waa Xaliimo Saciid Akbar waa waxay tiraahday haboon shalay haboon shahlay bay noqotay ana saybiyan ku arka kula baadaam Xirsi oo wareejinay face mask way taagada Xaliimo haboon shahlay noqotay kula saybiyan ku soo arka amal ay shaqaysanaysaa sidii Xirsi u shaqaysanay amal dadka caayimaanay dareenka kale filimka inta xalaqada ugu dambeysay aad ku sii macaaniyay waxaa kamid ahaa markii miiska qadada la iskugu imaaday in la tago dadkii haboon iyo Xirsi yaa la tagay awal Xirsi kaligiisa maqnaa Xirsi yaa la tagay haddana haboon kuraastii waxaa banaanaatay laba banaanaatay afar soo hartay hadda intaana waxaan usoo qaatay waxaa jirta in yar oo filimka xalina la qalqalsiiyo cabsina la geliyay in haboon dhakhtar la dhigo kale gabadha kalkaalisada u sheegayso asla aragna tii habeenka maqaayada kula fadhiisamiya mas waa mid kale iyadu waa meel ku aragtay aniga maanta shaqada fasax ayaan ka ahaa laakiin shalay isbitaalka markaan joogay qaybta emergency-ga waxaa la keenay gabar dhaawacay zaid ay ku yaaleen waliba koomo isla markii anaga waxaa aaminay dadkii daawanaya daanahay haboon waa dhakhtarka taala camal ila wal raadinaya moogta director caadi noqdaan xalay ku jirto wajigeedana waxay ila ahayd qof aan hore u arkay laakiin waan soo xasuusan waayay hadda ayaan soo xasuustay inay tahay gabadha adiga habeen kula fadhisay dukaankan magaciisa maan haboon waxaa lahaa Nadiir Cabdi mid kale ehelkeeda la jooga ma santahay adiga madaxarjiina ehel dukaanka Nadiir Cabdi waayo meeshaas la farkeeso laga yaabo in wax kale ay ka soo baxaan oo gabadhan ay aragtay ay tiraahday iyada u egtahay marka xataa mar labaadka xataa ay ku adkaysanaysaa iyada ila egheed ay tiraahday in haboon tahay dhakhtarka ku jirta haboon idan soo macquul ma oo ninkan soo fududaado intuu dhihi lahaa bal qolka ii tilmaam bukaanka aan soo yar arko iska soo laabtoon oo xagga horan informationka lagu siiyey way dhici kartaa waxaan filin hadoon la dhihi karaa waa kana haboon Nadiir Cabdi la noqotay ehelkeeda la hela camal ya commenting share ka noo dhiirigelin subscribe ka please and please waxaan rabnaa inaan maxaa la yidhaahdaa bisha Ramadaan ilaa iyo inta ka dhimo insha Allah inaan kontonka ku buuxino tartiibkiina iskaga soconina waana diiday Soomaaliya inaan hal habeen daftiine insha Allah taala janaalka intiina daawataa share toos ku wada fataan anigoo ehelkiisa share garay cid aan baraya adin kale waa bas adinka ay gaarsiin karo ma fahanteen aad ma santiin inta kulmi doono muuqaalka waxay idinka tagayaa sida nabadgelyo peace and love